biladaha ciyaaraha Olombikada 2020 ayaa waxaa lagu sameyn doonaa aaladaha elektarooniga oo dib loo warshadeeyay sida ay sheegeen gudida qabanqaabada Tokyo 2020. waxay arrintan imaanaysaa kadib markii malaayiin taleefanada casriga iyo aaladaha kale elektarooniga loogu deeqay ciyaaraha Olombikada ee 2020 lagu qaban doono wadanka Japan gaar ahaan magaalada Tokyo. ku dhawaad 50,000 oo tan oo aaladaha elektarooniga ay ku jiraan kaamirooyin, ciyaar gacmeedyo, kombiyuutarro iyo 5 milyan oo taleefanada casriga ay 18 bilood ee ugu dambeeyay ururiyeen gudida qabanqaabada ciyaaraha Olombikada. waxay arrintan qayb ka tahay halkudhiga ciyaaraha Olombikada 2020 ee ah in deegaanka la dhowro. waxaa qorshahan uu dadku u sahlayaa fursad ay kaga qayb qaadan karaan isu diyaarinta ciyaaraha Olombikada, ayna sidoo kale kusoo bandhigi karaan inay jecel yihiin deegaankooda ayaa lagu yiri warbixin ay soo saareen gudida qabanqaabada. dadka reer Japan ayaa aaladaha qadiimiga waxay dhigeen xarumo loogu talagalay waxaana dib loo warshadeyn doonaa aaladahan iyagoo laga soo saarayo biladaha lagu bixin doono ciyaaraha Olombikada 2020. 27,000 oo kilogram oo maar ayaa laga soo saaray aaladaha bishii June 2018 iyo bishii October. waxaa sidoo kale laga soo saaray 4.28 kilogram oo dahab iyo 35,000 kilogram oo qalina. naqshada biladaha cusub ayaa lagu sameyn doonaa aaladaha elektarooniga oo dib loo warshadeyn doono waxaana lagu soo bandhigi doonaa bilowga iyo bartamaha sanadan aynu ku guda jirno ee 2019 kuwaas oo noqon doona biladooyin naqshad ahaan aad u qurux badan.